dhaqanku wuxuu qeexaa qayimka iyo caqiidooyinka iyo danaha shakhsi ahaaneed ay leeyihiin bulshooyinka ku nool caalamka. bulsho walba waxay leedahay dhaqan u gaar ah taasoo ay uga duwan tahay bulshooyinka kale ku nool caalamka. dhaqamada ayaa badanaa waxay yihiin kuwo isku mid ah balse waxay ku kala duwan yihiin sida loo fuliyo caado dhaqameedyada ay leeyihiin dhaqamadaasi. taariikhyahanada caalamka ayaa aaminsan in dhaqanku uu soo bilowday 3,000 oo sano ka hor welina uu socdo tijaabinta iyo weliba samaynta caado dhaqameedyada qaar. haddaba safarkan dheer ayaan ku tagnay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe si aan wax uga ogaano qaar ka mid ah dhaqamada ay leeyihiin dadka ku nool deegaanadani. waa dhul aad u weyn oo dhinac ku haya badweynta Hindiya. dhulkani dhirtiisu waa kuwo aad u cagaaran waxaana ka baxa geedo waaweyn sida geedka loo yaqaan garaska, bardaha iyo weliba xundurta oo inta badan ka baxa gobolada Shabeellada Dhexe. kadib 5 saacadood oo aan ku jirnay safar dheer kadib waxa uu dhammaantii tagnay deegaanka Mooyaale oo ah deegaan u dhaxeeya deegaanka Macaan iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. waa deegaan dhirtiisu cagaar yihiin oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah. imaashadani kadib waxaa bilaabatay soo dhaweynta martida cusub taasoo ay ku aanbixeen dadka ku nool baadiyaha. sanada ma yaqaanaan dadka waa dadka laakiin dadka oo mataqaanaa ee ku soo koray oo sanooyinka aabayaalkiina wajidna aabbaana soo wadi jireen waa sax inay sanooyinka soo wadi jireen laakiin dhalinyarada hadda oo macnaha cusub hadda soo kordhaysa in la baro taariikhda ama dhaqanka way fiicanta in la baro si mataqaanaa jiilalka soo socda si ay ugu faa'iideystaan ay hore ugu sii wadaan. marka in badan oo mataqaanaa doodad badan iyo waxyaabo badan way iska wala sheegaa laakiin aniga inta badan waxaanu leenahay sanooyinkan iyo caadooyinkan iyo dhaqankan iyo mataqaanaa iyo siyaarooyinka la isugu yimaado waxaa leenahay hambaliyo soo dhawaada. waa xilli subaxa dadka ku nool deegaankan waxay bilaabeen shaqadoodii subaxlaha ahaa. qaar baa xoolihii u kaxeeyey duurka fog si ay u soo helaan caws iyo biyo cabaan. qaarkoodna waxay qarteen dameerihii si ay u soo helaan biyo lagu dhaamiyo reerka. waxaa bilaabatay munaasabadii halkan loo yimid ee ahayd xuska sanaha oo ah munaasabad loo dabaaldego sanadkii hal mar. waxaana u dabaaldego dadka ku nool deegaanadani waxaa lagu soo bandhigaa waxyaabo kala duwan ay ka mid yihiin damaashaadyo, ducooyin iyo weliba ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka. munaasabadan waxaa la qabtaa sano kasta ayaa la qabtaa. sana la yiraahdo dadka waxa weeye roobka guga markuu u da'o oo beeraha la fasho oo xoolaha ay dhaqaaloobaan ay soo cayilaan beerahana mirahooda ay bilowdaan ay soo baxaan ayaa la sanaystaa xasuus way. dadka kala maqnaayo jilaalka kala maqnaayo oo kala duurka kala jiray oo kala shaqaysanayay markay barwaaqada tahay waa isu soo aruuraan. ujeedada ugu weyn ee loo qabto munaasabadan ayaa ah markii uu da'o roobka deegaankana uu noqdo barwaaqo ayaa dadku deegaankan iskugu imaadaan. waxaa la sameeyaa deegaano kale oo deegaanadan ku dhow ayaa sidoo kale lagu qabtaa balse ugu dambeyntii oo ah maanta waxaa la iskugu yimid halkan oo lagu soo bandhigi doono ducooyin iyo weliba fikro ku aadan deegaanka. ولا بوليسا ولا لقلها ملاقودي كسو قيب قلي دقودي دقن كسو قيب شيء ولا دعيسا دعوايا برباركا كسو قلي ولا مودينكا كسو قيب قلي. cunto cunis iyo bunaysi dheer kadib waxaa la gaaray xilligii la ciyaari lahaa ciyaaraha kala duwan ay dhaqanku u leeyihiin. beesha mataan oo ah beeshii soo abaabushay munaasabadda xuska sanadlaha oo sanadkii hal jeer lagu qabto deegaanadani. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray malaaqa beesha mataan oo in badan ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhaqanka wuxuuna waalidiinta ugu dardaaramay inay carruurta baraan muhiimadda uu leeyahay dhaqanka. marka waa maalin ay aad u farxaan waa maalin ay damaashaadaan wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada iyo odayaasha dhammaan oo taariikh fog lah. marka sidaa darteed waxaanu leenahay bulshooyintan halkan ku nool farxadda isku yimaadeen aan ka soo qayb galnay waa u mahad celinaynaa
inta ka soo shaqaysay inta soo abaabushay inta soo dhistay inta fikir iyo caqli iyo maskax xoolo soo gelisana waxaa leenahay shukran lakum aada u mahadsantihiin cabdixamiid maxamed astaan TV